عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayal waxaan rabaa halkan inaan kula wadaago saddex talo oo dahabiya oo aad ii anfacday kuna saabsan tobanka dambe ee bisha Ramadaan. walaalayal tada waxaa soo jeediyay imaam kamida imaamiyada masjidka xaramka Allah xifdiyo. taladani waxay ku saabsan tahay si aan uga faa'iideysan lahayn tobanka dambe ee bisha Ramadaan oo laga yaabo inuu ku jiro ayba ku jirto Laylatul Qadriga. walaalayal waxaan rabaa inaan talada koowaad in la wadaago. imaamku wuxuu soo jeediyay qofka muslimka ee raba inuu Laylatul Qadriga ajirkiisa helo waxa koowaad uu sameeyo tobanka dambe inay noqdaan inuu takawaad inuu bixiyo oo sadaqaysto $1 riyaal £1 $1 hadba wadanka uu joogo lacagtiisa. hadduu habeen kasta tobanka uu bixiyo $1 ama se lacagtaas yani $1 waxa u dhiganta wadankiisa ama ka badan ama ka yarba wuxuu helayaa iyadoo laban laabay oo loo laban laabay 83 sano. يعني ليلة القدر هادو kugu soo beegmo adoo bixiye $10 tobankaas waxa lagu dhufanayaa sidii adoo bixiye 1000 bilood ama 83 sano. talada koowaad ay walaalayal sameynayna waxa weeye inaan bixino $1 ama se wixii ka yar habeen kasta oo kamida tobanka dambe ee bishii Ramadaan sayni Allah subhanahu wa ta'ala ajirkeeda inoo siiyo. talada labaad waxay tahay habeen kasta waxaad tukataa 2 ragcadood ama ka badan waayo amalka aad sameeysid wuxuu u dhigmaa 83 bilood. habeenkii aad tukatay haddii uu ku soo beegmo tobankii dambe ee Laylatul Qadriga waxa lagu lama laabaya 83 sano ama waxay soconaysaa inaad 1000 bilood aad sameeyay amalkan. tan saddexaad ee ugu qiimaha badan ee ugu dambeysana waxa weeye adoo habeen kasta akhriya suuratul ikhlaas ama qul huwallahu ahad 3 jeer akhriya. qofkii 3 jeer akhriya qul huwallahu ahad nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wuxuu la mid yahay sidii qof quraanka dhameeyay. marka tobankan dambe ee Ramadaan habeen kasta waxaad akhridaa habeen kasta insha Allah waxaad akhridaa qul huwallahu ahad 3 jeer. habeenkaasi hadduu ku soo beegmo Laylatul Qadriga waxay u dhigantaa adoo 1000 bilood ama 83 sano quraanka dhameeyay oo habeen kasta quraanka dhameeyay. marka ajirkeeda bal ka waran yani qofkii 3 jeer qul huwallahu akhriya habeenka Laylatul Qadriga waxa loo qorayaa sidii inuu quraanka dhameeyay 1000 bilood ama 83 sano. waa ajir aan la soo koobi karin. talada ugu dambeysay imaamku bixiyay waxay ahayd fariintan insha Allah dadka kale gaarsii siina gudbi lacalla waxa laga yaabaa qof inuu sameeyo aakhirana aad ku aragtid khasnadaada xasanaadka iyo ajirka aad ku aragtid. marka yani walaalayal aan ka faa'iideysano amal kasta sameeysid 10 jeer ayaa la laabaya. sadaqada bixi ragcad iska tuko maxay ahayd quraanka akhri. marka walaalayal waxa la idinku lama laabaya 1000 bilood ama 83 sano. waa habeen aad u fadli badan waa habeenkii Allah subhanahu wa ta'ala quraanka soo dejiyay waa habeenkii wax la qadrin jiray sanadka dambe wixii dhacay qofkii noolaanaya qofkii wax dhimanaya. waa habeenkii nabiga sallallahu alayhi wasallam inagu yiri waxaad yani aad ku ducaysataan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. marka ducadaasna akhriya insha Allah adkaartaas marka salaatul leylka aad tukanaysaan aan ka wada faa'iideysano. saddexda taladood hadii soo gabagabayno talada koowaad £1 £1 riyaal €1 1 shilin hadba meesha joogtid sadaqada wuxuu la baxay habeenkaas. hadday habeenkii ku dhacdo Laylatul Qadriga 18 bilood ayaa lagu laba laabaya 83 sano. habeenka 2 ragcadood tuko habeen kasta 83 sano lagu laba laabaya hadday Laylatul Qadri kugu beeganto. 3 qul huwa akhri 30 juz quraanka aad akhriyaa ay u dhigantaa oo quraanka dhameeyay waxa lagu beegayaa 83 sano adoo quraanka dhameeyay. marka saddexda tala ayaan dabcaynaa in la wadaago. Allah subhanahu wa ta'ala Laylatul Qadriga hayna waafajiyo Ramadaantana haynaga aqbalo. aad baan idin salaamaya. jazakumullahu khayral jazaa. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.